الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سديدية طبناد يا كتاب كان تحفة المولود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله. وحو الشيخ هل كان وهل جواز حمل الأطفال في الصلاة، يعني عرورتا إن لقاذي كرو مركي صلاة الوجرو حتى هذا حالة دركوض إيو سيدة جركوض تونا ور آذن كهينين. بخاري مسلم وحاكسوغا من حديث أبي قتادة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم إنه وذي وحنباري قبل لورنجل أمامة بنت دشي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يسي زينب قبل دشو أمامة لورنجلي وننكي لورنجل أبي العاص من ربيعنا أوردالي marka istaagana wuu qaadayay, markuu sujuudayana dhulku dhigi jiray. marka riwaayada muslimna wuxuuba ku qaaday qoorta ayuu ku siday, halka qoorta ilmaha intuu la saaro ayuu ku qaaday. waxaa kaloo sugan oo xadiisna uu saxiix ahaa xasan iyo xuseen rasuulka oo tukan sala allahu calay wasalam inay dusha ay ka korayeen. dhaqdhaqaaqa xitaa la dhaqdhaqaaqayay hadduu yahay lixaaja dan ama salaada arrimaheeda wax ku saabsan, ama dan ay keento inuusan waxba salaada dhibaato u lahayn, ilmaha in loo naxariista ayaa ka muuqanaya xadiidka, iyo tawaaduca iyo karamka akhlaaqda wanaagsan oo meesha iyaduna ka muuqanaysa. ayib, waxaa kale oo iyaguna sunno ah ilmaha shumintooda yaryar in la shumiyo. bukhaariga muslim waxaa ku sugan rasuulku sal lla alay wasalam inuu shumiyey xasan iyo xuseen oo u yimid nin la odhan jiray al aqrac ibnu xaabis oo la joogay baa wuxuu yidhi anigu 10 wiil baan dhalay, weligay mid ka mida ma shuminin. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam man laa yarxam laa yurxam, qofkaan naxariisanin looma naxariisto. sidoo kale saxiixeynka waxaa ku sugan nimankii acraabta inay rasuulka la yaabeen wiilasha siduu u shuminayo. markaasaa wuxuu ku yidhi maxaan idiin tari karaa haddii ilaahay qad nazaca min quluubikum araxma, haddii ilaahay qalbigiina raxmadda uu ka siibay maxaan anigu idinku samaynayaa. arinta kale oo ah iyaduna sunnaha waxaa ah in caruurta la edbiyo iyo in wax la baro iyo in cadaalad iyaga naftooda dhexdooda loo sameeyo. allah subxaana watacaala wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara, yacni ka ilaaliya reerkiina iyo caruurtiina naar ka ilaaliya. taasna waxaa weye sida culimmadu ay fasireen. cali bin abi aalib wuxuu leeya callimuuhum waadibuuhum, ilmaha waxbara hana la edbiyo. xasanna wuxuu leeya muruuhum biaacati illaahi wacallimuuhum alkhayr, daacada ilaahay hala baro oo khayrkana hala baro. callimuu awlaadakum asalaata ل7 waa kii xadiidka 7 jir salaada ha lagu baro, 10 jir hadday gaadhaan haba lagu garaaca hadday diidaan. wafariquu baynahum fi lmadaajic, jiefkana ku gelageeyo wiilasha iyo gabdhaha ayaan la wada seexinine 2 meelood hala kala seexiyo. marka qofku waa mas-uul, sida xadiidkii imaamu bukhaari kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati, yani qof kasta waxaa la weydiin doonaa qiyaamada cidda mas-uulka uu ka yahay. ninka reerkiisa la weydiin, gabadha nafteeda gurigeeda la weydiin, marka qof walba mas-uuliyadiisa waa la weydiinaya. iyaga naftooda xuquuqul awlaad waxaa in cadaalad dhexdooda loo sameeyo. rasuulku suu yihi sala allahu calay wasalam u sameeya caruurtiina dhexdeeda cadaalad u sameeya. 3 jeer uu ku celi icdiluu bayna abnaa'ikum icdiluu bayna abnaa'ikum icdiluu bayna abnaa'ikum, caruurtiina dhexdeeda cadaalad u sameeya. waa xadiis sheekh alalbanina uu saxiixiyey. xadiidkii imaamu muslim soo saarayey oo min xadiidi ninkii la oran jiray bashiir oo nucmaan ibnu bashiir waa aabihii saxaabiga jaliilka ahaa. rasuulku u yimid sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu ku yidhi xaaskayga waxay rabtaa inaan wiilkayga aan siiyo wax gooni ah, qulaam buu ahaba la yidhahdaa, cabdi inaan siiyo. marka wiilka la sheegayna waa nucmaan ibnu bashiir. waxaan fili kitaabka 40 xadiidka 5 inuu ahaa taqriiban nucmaan ibnu bashiir xadiidkiisii. marka markhaati ka noqo. rasuulku wuxuu yihi sal alla alay slam walaalo kale ma jiraan? ha, miyaad wada siisay ilmahaaga oo dhan? maya. wuxuu yihi anigu markhaati ka noqon maayo shay jawr ah, yacni gardaro iyo gef iyo maaragtay qalad shay ah kama noqon karo. riwaayo kale raadsi cid kaaga noqota saasoo kale. marka imaam ibnulqayim wuxuu leeyahy tilka alcatiyatu kaanat jawran binasi rasuulillahi sal ly slm, waxaa yahay shay dulmi ah. marka waxaa waajiba cadaalad in ilmaha dhexdooda loo sameeyayo waa waajib.
ibn اlqayim raximahullah wuxuu leeyay salafku waxay ahayn kuwa jecel inay cadaalad u sameeyaan caruurta, xataa shuminta oo ah dhunkashada waxa la yidhaahdo ayay cadaalad ugu sameyn jireen. ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin allah subxaanahu watacaala yas'alu lwaalida can waladihi yowma alqiyaama qabla an yas'ala alwalada can waalidihi, yacni qofka weyn baa la warsan doonaa qiyaamada. inagu waxaynu maqalaa un caruurta cuquuqulwaalideyn iyo ilmuhu waa caas iyo waa fulaan. waalidka su-aalaha la weydiin baa ka horeeya ilmaha iyaga naftooda, intaan iyagaba aan wax la warsanin baa iyaga la weydiin doona. wawasayna alinsaana biwaaliday. marka adilo badan baana kusoo aroortay arintaas. yani marka laleeyahay walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq, yani ilmihiina hadilina, waa khitaab loo jeedinayo waalidkii baa lala hadlayaa. marka taasna waxay tusinaysaa in mas-uuliyaad la kala leeyahay. waalidka mas-uuliyaad buu leeyahay ilmihiisa inuu diintiisa iyo tarbiyadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa iyo waxbarashadiisa cilmiyeedba uu ka fikiro. ilmihiina waxaa lagu leeyahay isagana baarinimadii iyo maaragtay waalidkiisii iyo ixtiraamkiisii iyo xaqiisii iyo waxuqabadkiisiiba marka dambe waa lagu leeyahay. marka qof kastana waxaa laga rabaa wixii la raaciyay insha allahu tacaala. faqti kula dii xaqin xaqahu wallahu aclam.